ayaa mahad leh haddana saan ku heshiinay insha Allah berri oo ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Soomaaliland ama gobolada Qoyi doorashada iyo diyaar garowgooda bilaabanaysa wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horeeyay ay Soomaaliland ama gobolada Qoyi ay halkaan ay ka soo baxaan insha Allah sidoo uu sheegay hadalkiisa aan adkeenayaa dawlad goboleedyada waa run waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo cidna ma doonayso aan aniga ugu horeeyo inaan halkaan sii joogno habeen kasta waxaan Allah ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah shaatiga caadi yahay cidna is dhagaxyeen cidna is dhaawicin cidna aysan isdilin aan halkaan ka tagno dawlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan diyaar ayaan xaggayga u ahay insha Allah saaxiibadayna waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo waxaan rabaa cawada fursad kale oo raba inaan halkan uga faa'iideysto waa October November December gobolada qaarkood xilligii abaaraha iyo jilaalka ayaa bilowday saad la socotaan Jubbaland xaalad adag ayaa ka jirta oo abaar ah oo biyo la'aan ah hadday ku sii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar degdeg ah January iyo February iyo March April ugu soo horeeyo marka abaar dheer ayaa qabsan doonta hadduusan ilaahay albaabaha nimcadiisa uusan noo furin waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dawlad goboleedyadaas gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan leed wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka dhaxda loo xirto wixii subaxii ka bilowdana aynu u diyaar garoobno wasiir beelena waa hor fadhiya wax sagxad la dhahay ma jirto mushaaraadka waa haysanaa ilaa April sanadka soo socda insha Allah mushaaraadkeena meel u yaala haddii aan lahayd mushaaraadka ciidamada haddii aan lahayd shaqaalaha rayidka intaasoo dhan waa haysanaa wixii zaa'id ayaan noo dhiman laakiin insha Allah waa inaan dhaxda u xiranaa oo aan saacidnaa walaalaheen ay abaaruhu saameeyeen sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan leeyahay hambalyo mar kale hambalyo waqti dambe la joogaa waxaan leeyahay aan duceyno